xildhibaan Suldaan Jaamac Nuux oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo halkan oo ah hooygiisa goordhaweed kula hadlay warbaahinta waxa uu ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale cid kasta oo ay qoysaysaba in maalinta berri toolo oo ay ku beegneed maalintii kal fadhiga xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ee lagu dooranayay duqa degmada Burco iyo sidoo kale ku xigeenkiisa ee hogaamin doona degmada Burco 5 sano ee soo socda inaanay dib u dhicin isla markaasina waqtigeedii lagu qabto halkan waxa ka hadlaya caawa anigoo ah Suldaan Jaamac Nuux xildhibaan Suldaan Jaamac Nuux waxaan halkan shir jaraa'id caawa ugu qabtay waxa la igu soo wargeliyay in berrito hawshii doorashada ee xildhibaanada iyo dhaarintoodii ay dib u dhacday sababna looma soo sheegin marka halkan waxa ka cadeynayaa inaan raalli ka ahayn taas waxaan soo jeedinayaa oo waliba xukuumadda u soo jeedinayaa inay doorashadaasi sidii dadku ay rajeynayeen shacabka Burco ay ku qabtaan iyagoo tixgelinaya tareenka shacabka iyagoo tixgelinaya nabadgelyada iyagoo tixgelinaya dadkii runtii doorashada sida quruxda badan ay u dhacday doortay xildhibaanadooda imikana rajeynaya inay maayir iyo maayir ku xigeen ay doortaan marka waxaan leeyahay xukuumadda maalin iyo saacad toona dib ha u dhigina idinkoo tixgelinaya dadka shacabka ah insha Allah intaasaan soo jeedinayaa sidaan sheegayna waxa weeye doorashadan waxa lagu kala sid qaadayaa 13 xildhibaan dhexdooda uma baahna farafarayn dawladeed uma baahna arrimo kale oo xasaasi oo dibadda kaga yimaada waxay u baahan tahay 13 xildhibaan inay u gartaan cid ay doonayeen maayirka ka dhigtaan marka waxaan ku celinayaa mar labaad inaan dib loo dhigin arrimo kalena lagu xilin xasaasiyadna la gelin Burco uma baahna nabadgelyadeeduna uma baahna horumarka iyo dadka magaraysa wada noolaashoodana arrinka uma baahna marka waxaan leeyahay waqtigeedii doorashada ha lagu qabto sidaasaan soo jeedinayaa Ibrahim Faarax Macaane MMTV Burco